kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena udub Somali TV qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona haddii rabbi qadaro saaxiibayaal qaar ka mid ah odayaasha jabhadda Owdal oo kulan xasaasi ah yeeshay maxay kaga hadleen kulankooda waxaa kaloo warkeena ka soo qaadan doonaa haddii waqtiga noo saamaxo saaxiibayaal madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo kulamo xasaasi ah la qaatay qaar ka mid ah isimada maamulkaasi maxay ka wada hadleen iyo dagaalo hadda mar kale ka dhici kara ceergaabo waxaan kaloo warkeena ku soo qaadan doonaa xiisaha siyaasadeed ee ka jira qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland iyo siciidani oo culays adag la kulmayo wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa daawade haddii aad janaalkeena udub Somali TV ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like share iyo comment waa dhankiina aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena mar kale waxaa dhaqdhaqaaqi ciidan aad u xoogan laga dareemayaa qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Somaliland wararka aan helnay ayaa waxay sheegayaan in jabhadda Owdal ay markan ay wado dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay ku difaacanayso deegaanadeeda sida wararka ugu dambeeya aan ku helayno sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay jabhadda Owdal ay wadaan go'aamo ay ku doonayaan inay ku weeraraan deegaano istiraatiiji ah oo la sheegay inay degaan dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka Owdal ayaa hadda wajahaya xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan saacadihii aan ka soo gudubno wararka waxa ay tilmaamayaan saaxiibayaal in mar kale ciidamada Somaliland ay doonayaan inay caburiyaan dadka reer Owdal waxa wararka sidoo kale ay sheegayaan in xiisadan hadda jirta ay noqon karto mid dhibaato fara badan dhalin karta waxaa saacadihii la soo dhaafay ay aad u kacsaneed xiisada gobolka Owdal ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha hadda dhibaatooyinka ugu xoogan ay ka jiraan iyadoo jabhaddu hub aad u fara badan ay hadda ay soo gaareen ciidamada maamulka Somaliland waxa ay rabaan in ay Owdal gibi ahaanba uu noqdo mid ay aad ugu taliyaan isla markaana cid kasto ay ka soo horjeestaan laakiin jabhadda Owdal State la yiraahdo ayaa waxa ay tahay mid gibi ahaanba ay go'aan adag kaga qaadanayso maamulka Somaliland oo la sheegay in maamulka Somaliland oo culays uu saarayo sidoo kale wararka waxay tilmaamayaan in Owdal xiisada ka jirto ay noqonayso mid aad u sii kobci karta saacadda ka dambeysa qaar badan oo ka mid ah nabadoonnada Owdal ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba u dulqaadanaynin wax waliba oo taagan xiisadan ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay ay u muuqataa nabadoonnada iyo qaar ka mid ah odayaasha beesha Samaroon in ay go'aan adag ay ka qaadanayaan maamulka Somaliland ayaa waxa ay la sheegayaa in uu hadda uu rabo in uu isbedel uu sameeyo isla markaana tallaabooyinkiisa ay noqonayaan kuwo uu ku doonayo inuu ku dhibaateeyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale wararka aan helayna ayaa waxay tilmaamayaan deegaanka Lughaye in uu hadda uu ka jiro dhaqdhaqaaqi ciidan oo aad u xoogan sidoo kale Baki ayaa laga soo sheegayaa in ay tallaabo adag ay ka qaadayaan jabhadani qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Owdal ayaa hadda waxay u muuqanayaan inay Somaliland cabasho xoogan ay ka muujinayaan saacadihii ugu dambeeyeen deegaanka la yiraahdo Lughaye waxaa la sheegayaa in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhaceen dibadbaxyadaasi ayaana salka ku haya xaalka guud ee jira iyo tallaabada ay qaadi karaan reer Owdal lama oga wax waliba waxa ay ku dambeyn doonaan tallaabo kastana sidii ay noqon doonto laakiin cabsi ayaa soo wajahday bulshada qaybaheeda kala duwan dhinaca kalena daawadayaal hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa kulamo xasaasi ah la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo ugu horeeya Cabdi Madoobe iyo sidoo kale Faysal Falaluug wararka aan helayna waxay sheegayaan in Faysal iyo Cabdi Madoobe go'aan adag ay qaateen iyagoo 120 gawaari oo gawaarida dagaalka wata ayay u dhaqaaqeen dhanka iyo ceergaabo waxaana la sheegay in Cabdi Madoobe iyo Faysal ba labadoodaba go'aankooda ugu weyn uu yahay in ay tallaabo adag ay qaadaan maadaama maamulka waqooyi bari Soomaaliya yoolkiisa ugu weyn uu yahay inuu ka guuleysto dhammaanba ciidamada maamulka Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ceergaabo isku soo aruursanayay sidoo kale waxaa la sheegay in ceergaabo xiisad aad u adag ay hadda ay ka jirto
cabdi madoobe ayaa hore waxa uu sheegay in uusan marnaba u dulqaadan doonin wax waliba oo lagu dhibaateynayo beelaha dega deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya. wararka sidoo kale waxa ay sheegayaan in deegaanada maamulka waqooyi bari Soomaaliya xiisadaha ka jira ay noqon karaan kuwa saameyn fara badan yeelanaya, iyadoo Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye uu kulankan uu la qaatay cabdi madoobe iyo Faysal Falaluug labadoodaba uu noqonayo mid saameyn badan yeelanaya, waxaana saacadihii lasoo dhaafay kulamadan dhammaantoodba ay ahaayeen kuwa looga arinsanayo xiisadaha iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan reer waqooyi bari Soomaaliya. waqooyi bari Soomaaliya ayaa hadda xiisadani ka jirto waxay u muuqanaysaa in mar kale saameyn xoogan ay yeelanayso, inkastoo wararka aan helayna ay sheegayaan salaadiinta beesha dhulbaante inay go'aan adag ay qaadanayaan. go-aankoodana waxa uu yahay in ay ka guulgaaraan cid kasta oo la sheego inay taageerto maamulka waqooyi bari Soomaaliya. maamulka waqooyi bari Soomaaliya culeyskan hadda uu haysta ayaa waxaa la sheegay inay beesha dhulbaante ay sabab ay u tahay, maadaama beesha dhulbaante eedeymo xoogan ay kala kulmayaan beesha warsangeli. warsangeli iyo dhulbaante ayaa khilaafkooda waxa uu noqday mid hadalhayn badan dhaliyay, iyadoo dadka darsa siyaasadda deegaanada maamulka waqooyi bari ay sheegeen in haddii beesha warsangeli kaligeed ay meel istaagto islamarkaana dhulbaante iyagana meel ay istaagaan in maamulka waqooyi bari gebi ahaanba uu burburayo, islamarkaana hadda xaalad adag uu geli doono maamulka waqooyi bari Soomaaliya. dhinaca kalena daawadayaal, wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya deegaanada maamulka Puntland waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu la kulmayo culeysyo siyaasadeed oo aad u adag oo kaga imaanaya qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi. saacadihii lasoo dhaafay waxaa jiray xiisado aad u adag oo la kulmayay madaxweynaha maamulkaasi, waxaana wararka aan helayna ay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani yoolkiisa ugu weyn uu yahay inuu guuleysto, islamarkaana uu ka guuleysto cid kasta oo kasoo horjeeda hanaan siyaasadeedkiisa. waxaana la sheegay in dhalinyaro fara badan saacadihii lasoo dhaafay xabsiga la dhigay. dhalinyaradan ayaa waxaa la tilmaamay inay baraha bulshada ay ku aflagaadiyeen hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo yoolkiisa ugu weyn uu yahay inuu ka guuleysto cid kasta oo hanaan siyaasadeedkiisa kasoo horjeeda, islamarkaana doonaya inuu tallaabo adag uu ka qaado. hogaanka maamulka Puntland ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa lagu eedeynayay inay qalalaad waaweyn ay ka galeen qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona bulshada deegaanada maamulkaasina la tilmaamay in ay culeys xoogan ay wajahayaan. culeyska xoogan ay wajahayaan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dambeeyo madaxweynaha maamulkaasi, waxaana Siciid Cabdullaahi Dani tani ay ku noqonaysaa filanwaa uu marnaba uusan kasoo kabsan doonin. waxaa qof walba il gaar ah ay ku haysaa Siciid Cabdullaahi Dani hadda abaabulka xoogan ee ku bilowday ciidankiisa, iyo maadaama ciidanku ay ka qaylidhaaminayaan mushaar la-aan aad u xoogan oo soo wajahday bilihii lasoo dhaafay. bilihii aan kasoo gudubnay waxaa haystay caqabado aad u xoogan maamulkan, iyadoo caqabadahaasi dhammaantood bay noqdeen kuwa saameyn xoogan yeesha. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena Udub Soomaali TV saaxiibayaal waa naga intaa daawaday. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar, janaalka like iyo share iyo comment waa dhankiina. waa mahadsantihiin, nabadgelyo.